kulan ay maanta yeesheen bulshada xaafadda Hodan iyo sidoo kale dadka Kenyaanka ah ee gobolada kale ee dalka ka soo jeeda ee ku nool Wajeer. Kulankaasi ayaa waxaa soo qaban qaabiyeen chiefka xaafadda Hodan iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxa waaxda hagaajinta magaalada ee town municipalka. Kulankan saddex geesoodka ah ayaa waxaa looga hadlayay go'aamadii ka soo baxay shirar maalmahani xaafadda Hodan ka dhacayay kaasoo looga hor imaadsanaa daroogada xaafaddaasi lagu dhexgado noocyadeeda kala duwan. sida ogtihiin komitiyada oo culimada sheekhayaasha ardada dhinaca ka yimaada oo Bulo Hodan odayaashada maanta xafiiska ay u imaadeen waraaqda resolution-kooda go'aankooda ay dhigteen ay maanta ay keeneen as a municipal manager waa ka qaada tan kale waxaan u sheegay amarka ay soo baxsadeen anaga dawlad ahaan intaan fulinin waay gacanna waa ku siinaynaa dadka kiosk meesha oo daroogi waxaan ku wadahayn notice waa siinna wax berri ka bilowd meeshaas raid aan ku bilaabaynaa kiosaashaas ku duwa xiraynaa komitiyada oo non-locals oo dadka ajnabiga u dhex jiraan chairmankooda maalimo u soo yeere Mr. Ndego u yeere shir weyn aan galna meeshan waa isku go'aansanna intaan resolution-ka komitiyada oo Bulo Hodan location qaateen intay ku waafaqeen chief-oftooda ku di arrintaas ku di intay gacan ugu siiyaan taasno insha Allah waa noo soo muujiyeen asagaan u dhibaanto hal marka anaga waxaan ka cabanaynay inay dadkanayta xaafadda ka ganacsanayo bacshada xun lagu wada ay xaafadda ay naga soo baxaan bacshada xaal baan rabnaa ma doonayna anaga wax bangi iyo wax la dhaha waxyaalaas in xaafadda aan looga gado waa ka hor imaadsannahay marka meesha waxaan iskugu imaanay inaan municipal aan u sheegno wixii anaga aan go'aan soo gaarnay uu naga guddoomay qaralaasi chairmankii nimankii dadkii down ka imaadeen way nala joogaan ayagana way naga qaateen marka go'aanka aan gaarnana kulli asoo gaarnana waa hadda u taagannahay marka ma doonayna anaga xaafadayna inay naga halawdo ilmaha inay naga halay ma doonayna xashiishan doonaynin dadkan 4 saac ku gaaraya meelaha ku ganacsanaya ilaa 4 saac wax ka bilowda xaq ka jiraan ma doonayna. Shakhsiyaad matalayay ama guddoomiyeyaasha dadka aanan u dhalanin Wajeer ee Kenyaanka kala ah ee loo yaqaano non-localka ayaa qaatay go'aanada ka soo baxay waxgaradka chiefafta xaafadda Hodan iyo culimada. Kwa majina naitwa Benson Mudharimi ama kwa jina mtaa najulikana kama Mwalimu. Leo tumetembelea ofisi ya municipality tukiwa na bwana CEO municipality. Tumeweza kujadili mambo mingi kuhusu amani na utangamano umoja katika hii jamii yetu. Jamii ya Wajeer imekuwa ikiishi pamoja na pia maneno tumekuwa tukitatua pamoja. Kwa hivyo leo kulikuwa na suala ambalo limekuwa likisumbua wanakijiji wa Bulo Hodan na tumeshirikiana kuwa tutaleta umoja na pia zile vitu ambazo hazikubaliki ambazo zinaweza kuwa zinauzwa huko Bulo Hodan. Tumejadiliana kuwa au vijana ambao wanaishi huko wauze biashara, wafanye biashara ambao ni halali, na pia wale ambao wanafanya biashara haramu wataweza kuhamishwa kwa biashara zao ama zifungwe kabisa, sababu watu wazee wa Bulo Hodan wamesema kuwa wanataka amani, na pia vijana wa bodaboda ambao wanaingia huko hasa usiku kutoka saa 4 kuenda, ni vizuri at least wajitahadharishe kama ni kazi wanafanya mapema, kama ni stage wahamishe hiyo stage iko huko Bulo Hodan walete huko town, at least ndio kuwe na amani, kwa especially wakati ambao wamelala unakuta bodaboda zinawasumbua. So tafadhali tunawasi non-locals, tafadhali tufanye biashara ambayo ni halali. Pia kama ni bodaboda tufanye wakati ambao inafaa. Zile pikipiki ambazo zina sosta ambazo zinasumbua watu, tafadhali tufanye biashara ambayo haisumbui ama iharibu amani ya mwingine. Tilizi ikuwe halali, na pamoja na hivyo najua biashara itakuwa mzuri na kila mmoja atapata riziki yake kwa njia ambayo inafaa. Asante. Si kastaba ha noqotee waxaa Wajeer ka socda la dagaalanka maadooriyaha kaas oo ay horkacayaan dowladda Axmed Cabdullaahi Jiir sidii lagu joojin lahaa gabi ahaan daroogada Wajeer lagu dhex isticmaalo amaba lagu dhex iibiyo. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.